nolol maanta waxay isugu timid inay ka hadasho cudurka coronavirus oo ah caabuq dunida ka jira mudanayaal iyo marweyn golaha wasiirada maanta fadhigan aan degdeg ayaan caadiga ahayn ayuu isugu yimid si uu arrintaas uga tashado. waxaa loo baahan yahay dalka isla xisaabtan iyo ilaalin in dalka lagu dhaqo, sidaa daraaddeed ayaynu kulankan degdega isugu nimid. laba wasiir ayaa ahmiyadooda gaarka la rabaa inay qabsadaan, waa wasiirka caafimaadka qaranka iyo wasiirka duulista hawada. wasiirka duulista hawada waxaa looga baahan yahay inuu xayiraad saaro muddo 15 maalmood ah oo dalka aan wax diyaarad aan kor ka soo degin. wasiirka caafimaadkana waxaa looga baahan yahay in ay tiimkeedii shaqada geliso oo ay riboodada iyo meel kasta oo dalka laga soo gelaya ay tiimkeeda ku diyaariso oo ay baadhid sameeyaan. waad ogtihiin dunidu waxay ugu talagashay budget weyn, 5 milyan oo dollar ayaan diyaarinay. isbitaalka Martina ayaa dadka xanuunkaas qaba la geenayaa. dowladdu sidaas ay ugu talagashay. hay-adaha musiibooyinka dabiiciga, hay-adaha maaragtay caafimaadka sida WHO, hay-adahaas oo dhan ayaa barnaamijkan ka qayb qaadanaya. waa inaynu qaybteena qaadanaa. marka shaqadeena ayaanu qabsanaynaa. wasiirka caafimaadka waxaa looga baahan yahay inay tiimkeeda diyaarsato, riboodka iyo meel walba geyso, ay qof kasta oo soo degayo baaraan, oo qofkii xaraaradiisu ay maaragtay temperaturekiisu uu kulul yahay oo dhan ay karantiil geliyaan muddo 15 maalmood ayaa loo baahan yahay. shaqo wacan ayaan lillahi. su-aashaas waa su-aal wanaagsan weeye, waad ku mahadsan tahay. si walba waxaa laynooga baahan inuu dadaal iyo ka hortag aynu samayno. qalab baa yaalla wasaaradda caafimaadka oo dhawaan la soo dejiyey. qalabkii adeegsadii si ku meel gaara intii uu ka imaanaya qalabkii loogu talagalay. waadna mahadsantihiin. shirkuna way maxaniyeen organ ayaa noo soo baxay oo lagaga hortegayo caabuqa coronavirus. waxaan howlgal ka rabnaa inaan ka galno oon heegan u nahay inaan airboortka ka galno. waxaan idiin soo diyaariyey qalabkii lagu baari lahaa coronaviruska. qofka ay xaaladiisu dhaafto 35 qofkaas waa karantiin. marka qalabkiina waa inaad qaadataan, howlgalkana waa inay heegan u noqotaan insha allah. isku dayna waan hayaa xaraaradiisu 30 way ka badan tahay. karantiil xaga karantiil